halkan waa deegaanka Muqlaay oo kamid ah tuulooyinka u simaada degmada Dowladda Soomaaliya dadweynaha reer Dowladda Soomaaliya waxay la dagaalamayaan ayax shalay galab deegaanka soo galay sidaad arkaysaan dhammaan degmada Dowladda Soomaaliya qaybaheeda kala duwan ee bulshada waxay isugu soo baxeen la dagaalamaya ciidamadii baabuurtii dhalinyaradii odayaashii dhammaan waxaa la dagaalayaa saaka ayax sidaad arkaysaan ayax fara badan oo webiga dhanka ka soo gudbaa carrada soo galay dadweynaha reer Dowladda Soomaaliya waxay kala dagaalayaan ayaxaan inuu markaas saameyn ku yeesho dhulka daaqa oo xoolo daaqaan oo hadda ku sugan yahay kadib maamulka degmada iyo shacabka magaalo iyo baadiyaba ayaa laba maalin iyo habeen waxay wadeen dagaal markaasi ay ayaxa ku doonayaan inay ku dhaafiyaan deegaanka iyadoo ugu dambeyntiina ayaxaasi deegaanka la dhaafiyay waxaana la xiray shalay dhammaan goobaha ganacsiga iyo waxbarashada gudoomiyaha arrimaha bulshada ee maamulka degmada Dowladda Soomaaliya Maxamed Xuseen Shide oo horkacayay dagaalkan lagula jiray ayaxa ayaa la hadlay waxaana uu ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen waxaan lagu sameeyay meesha horta la marwan markii anaga aan beeraha ka bixinay wuxuu dagay tuulo la yiraahdo Qorday iyo meesha la yiraahdo inta u dhaxayso wuxuu dagay meel la yiraahdo Fuud Ambiyo iyo Muqlay iyo Siinay oo hal mar saflaar u dagay waa meelaha lagu galo habeenkii oo dhan la kor deganaa meelahaas ka mid ahayd waan raacinay gobol buuna mariyay tuulo la yiraahdo oo sii dardaray Cabdullaahi oo soo maray oo sii socday duduma dheer iyo ka xariibo maray beergood ma leeyahay habsaday waan kaga daba tagnay wuxuu tagay meesha la yiraahdo dhugo dhumay wuu habsaday qoryo waaweyn oo isticmaalay markaas waxa noo yimid taliya ciidanka noo yimid bawl qoryo waaweyn oo isticmaalo dhishikiyaal iyo ku jiraan ay sheegay iyo seeka wadada u qabtay wuu yaacay webiga uu galay geedii webiga ku dagay mar labaad uu ka daba tagay dabada hadana uu qabtay seekaawihii webiga uu saas ku maray kama naharin walaxa halkaas noo qabtay walaxa hadana garab gashay ilaa suufay si garab socdeen xabada ku siridahayeen waxaan u adeegsanna male intaas oo tuulana uu soo maray adoo qasaarooyin ay yareen inuu gaarsiin Ilaahay ugu rabay laakiin Ilaahay uma yeelin waan ka faa'iidno waa iska gudbinay Ilaahay baa mahad iska loo nala garab galay gurmadkii walaxa waa nooga horimay malaxa adiga waa iska la qayb qaadanay Ilaahay wuuna dhaafiyay cadowgaas waxaan dhihi lahayn cid kasta ha u diyaar garowda hadii carrada waxa maqlay gadaal mid baa ka soo socdo inuu soo gudbaa laga yaabaa shalay markaan qaybtaas sameyn qayb kale soo gudubtay erigeedu inuu ka soo gudubtay